الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. meeshan aan taaganahay akhyaaray iyo asxaabay waa magaalada Wiesbaden dalka Jarmalka. magaalada dhinacaas wabiga ka ahna waa magaalada Mainz baa la yiraahdaa. magaaladan dhinaca bidixda iga xigtana waxa la yiraahdaa Wiesbaden. webigan yarka baa kala qaybiya labada magaalo bundooyinku saaran yihiin. bundooyinku waa u kala baran yihiin, webiguna waa u kala baran yahay labada gobol. laba magaalo madax bay u kala yihiin laba gobol oo kamid ah dalka Jarmal. haddana magaalada hadda markaan dhex marayay saddex habeen baan deganaa. labada magaalo waa isku hal magaalo, wax kale oo u kala baxsan ma jiro. yacni si caadi aad u dhex maraysaa labada gobolba, iyada oo canshuur kala gaara leh, iyada oo nidaam kala gaara leh, iyada oo xukun kala gaara leh, maamul kala gaar ah leh oo kala duwan, nidaamkooda shaqo kala leh, axkaamtooda xataa ay kala duwan tahay. middan waxa laga yaabaa canshuurtu inay intaa tahay, middan canshuurtu intaa tahay. waxa laga yaabaa middan shaqadu qaabka inay tahay, middan shaqadu qaabka tahay. traafiga iyo jidka middan inay nooc tahay, middan kalena nooc kale tahay. arrimahaas oo dhan haddana si maamul ah oo midaysan oo qofka muwaadinka ah ama qofka isagu magaalada soo booday aanu dareemayn inay laba maamul iyo laba nidaam iyo laba madax kala leedahay ayaa lagu kala maamulaya. taas waxa lagu gaaray waxa weeye dadkan inay heshiis ku yihiin oo ku walaaloobeen dhulkooda inay sidaa ugu wada noolaadaan. cibrada meesha madarsiga ku jira kaas weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aan kariimka wuxuu leeyahay afalam yasiiruu fi lardi فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. دولك هدان مرينو وإنا نكو عبر قادنا وحان أركينو. أنا وحان أركي سومالي دا أو ضد مسلنا لابا قبل أو اسكو دقن أو لابا معمول كلا شيكتا أو لابا مدح كلا شيكتا هدانا أن وحبكو هشين كريم 25 isbaaro ama checkpointi iyo istaajin dhexdood inaan u maro. jidku labada dhinacba inuu burbursan yahay oo dhibaataysan yahay. point kasta ama checkpoint kasta ama isbaaro kastana lacag lagaaga qaado. gaarigu xataa laba jeer uu taargada kala bedesho oo xataa uu garan kari waayo labada taargo in loo kala qaybiyo ama nidaamka loo kala saaro. waxa soo dhami waxay asal waxa uu ah dadkan walaalaha ah oo isku maslaxada ah oo isku diinta ah oo aan garanayn haddana siday u wada noolaadaan ama danahooda u wada maamushaan ama maslaxadooda guud ugu heshiiyaan. ta Soomaaliyeed inaynu maslaxadeena guud iyo danteena guud u wada heshiino oo wada garanno in wax naga dhaxeeyaan, dalkan naga dhaxeeyo, maslaxadiisu naga wada dhaxeyso, inaan ku wada noolaano, aan ku wada khasbannahay oo noloshaas aan qaybsanno oo raalli ku wada noqonno. goormay noqonaysaa ummadaha adduunkan ku dayan doona iyo dadka caqligooda isticmaalaya xataa haddaanay diin garanayn ama diin aanay haysan. masalan hadda annaga gobollo iyo magaalooyin isku dhinac yaal ayaa waxaa ka socda dagaallo. gaalkacyo ka soo qaad masalan waa hal magaalo, dad baa wada degan isku mid ah oo ilmaadeer ah oo wada dhashay oo yacni isku diin ah oo isku dhaqan oo abti iyo adeer iyo eedo iyo seedi isu wada ah. haddana dhiig dhallinyaradoodii labada dhinac waa ku daadanaya. caqliga dadkeenna shacabka haddii ay jiraan dad qandaraasley ah oo iyagu dadka isku baabi'inaya, wayba jiraan qandaraasley dad qandaraas ku qaatay inay ummaddaanu sidaa u dullaysnaato, ummaddaanu inay sidaa u baaba'sanaato, dhiiggooduna sidaa u daato. dad iyaga ka mid ah oo la qabiil sheegta oo la abtirsinya sheegta oo madax isugu sheega ayaa isku baabi'inaya oo ugu yeeraya inay dhiigooda daadiyaan meeshay caqli keeni lahaayeen ummaddaanu ay ku wada noolato oo walaalo ku ahaato. laakiin iyaga keliya eedda ma lahe waxa leh fastakhaffa qawmahu fa ataacuuhu innahum kaanuu qawman faasiqiin. ilaahay qowm fircoon wuxuu yidhi way adeeceen fircoon markuu yidhi adeeco iraaca oo haadaanka ka tuuray dadkiisu way wada raaceen. shacabkaas faasiqiin bay ahaayeen buu yidhi. war may iska qabtaan Soomaalidu dadka qandaraasyada ku soo qaadanaya maalin walba.
دجاهن وشيء وشيء عالم دجيسن ميسان ومد عقل دجيسن ميسان ومد مصلحة دين ولا دجيسن ميسانه كان إذا كنت جاري سنة يوديجين كوجنا السنة وشو كندرة مالوها دارها وين مالها كل سنة كواسات إذنكم مالو والبديه يسووها ملاح ذي مصلحين إنه هيان عقلكم مركو صون قضاء أيات كوان توجد دونتان وضدكم سيد أول النولي هنا أضوانا رانتان بل قال كأيه iyo gobolada kale oo lamid ah aan ognahay ha noqoto gobolada dhexe ha noqoto shabeellooyinka ha noqoto jubbooyinka ha noqoto waqooyi galbeed dhinac walba saasa la isugu kiindiraya dad walaalaahna waatiin dad isku diin habaatiin dad qaraabo habaatiin waana dad kooban oo faraha lagu tirin karo dadka qandaraasyada idinku soo qaatay anigu hebel inaan iraahdo uma baahin waad garanaysaan waana taqaanaan يا إذن كان مدح كدكتي إذن كان جاكوين وديبتي عن معنى لهين ورنجا فريست ما تراهدان دلي يردين يومدين يدلكين بدبات ستان الدون كلهم بينو قصلي أو إن لا يابن مركا وروح نكو عبرقات الدون كأد مريسان كو عبرقات دلي يردين قحوتي أهيد بميلها كبوه مقالدان هي مقالوين ككوهر رئيس جرمالكا أسبوع بان شوقي كلي خميس إلى خميس وحنكو أرجع دلي يردي الشنية تمنجرو أفريج كا dhalinyarada joogta oo dhowr iyo 10 kun ka badan waa 17 jir Soomaaliyeed qaarkoodna waan soo galiyay Facebook Soomaaliyeed wallahi inaan ilaahay idin dulmin wallahi inaan ilaahay shacabkaas dulmin laakiin shacabkaas isaga isdulmiyay marka uu ardaasha uu ka dhigtay ku tijaaraysata uu ka dhigtay inay iyagu maaragtay ay dhigooda ku tijaaraystaan takhalluf iyo dib u dhac iyo gaajo iyo qax iyo baaba iyo dhiig iyo dib u dhac iyo ummado kale inay qabsadaanna ay u horseedeen ilaahay subxaanahu wa tacaala caqliga hay noogu soo celiyay xaabtayda iyo bogayga ku xiran iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan way idinka salaamaya maantana waxaan u sii soconnaa dal kale inaan bal Soomaalida ku soo booqanno ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo yasiro safartana haynoo yasiro ummadana ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka ka dulqaado khayr iyo barwaaqo iyo caafimaadna Allah ugu bedelo assalaamu calaykum waraxmatullaah